keenay marka getting ready mulay wax noo diyaarinayaa inuu Windows-ka noo soo daaro marka waan iska sugeynaa ilaa uu Windows-ka noo soo kaco marka halka kana keeno waxaan u baahanahay inaynu samaysano password marka password-kaas waxaan ka dhiganaa abc123 ismayn finish ayaa leedahay okay password adaga ayuu baahan yahay abc123 $, ayaan ku dareynaa then abc123 $, says your network group get the requirement from okay hadda ayuu naga aqbalay then hore ayuu noo kaxeynayaa Windows-ki waan galnay wuu noo soo daaray marka waxaan u baahanahay inaynu galno Windows-ka abc123 $, enter then administrator ayaan ku galnay serverki waan galnay Windows Server 2019 hadeer waa uu noo diyaarsan yahay waana finish Windows 2019 Server 2019 hadda waa noo diyaar wuu noo soo kacayaa yes marka waxaan u baahanahay hadda shaashadu way yartahay marka inaan shaashada weynaysana ayaan u baahanahay tab ayaa tagaysaa VM ayaa tagaysaa install VMware tool install ayaa leedahay si uu compatible ula yeesho systemka inay shaashadiisa oo dhan qabsato meesha VMware-ka iyo Windows-ka say iskula shaqeeyaan wax yar uu soo kacaya dulqaad ayaa sameynaynaa Windows Server-ka halkaas ayaa ka arkaysaa server manager-kii markaas ka sugeynaa ilaa intuu ka soo baxayo isaga wixiisa iska wato xoogaa tartiib buu soconayaa oo markii ugu horeysa soo kacayo dulqaad yar ayaan u sameyn doonaa insha Allah bidnillaahi ta'ala kariim marka ugu horeysa oo server-ku soo kaco wuxuu ku soo saarayaa try managing surface with Windows Admin Center marka hadda uma baanin insha Allah casharada kale ayaa idinku tusaya sida loogu maamulo Windows Admin-ka si loogu maamulo server-ka meesha aad halkan uga maamuli lahayd manually marka server-kaas ka xir waxaan haysanaa trailer ah leesanka 180 maalmood ayaan haysanaa marka waa good way marka waxaan sugeynaa hadeer install-ka markuu noo dhameeyo bahalka kan markuu installation-ka noo dhameeyo ayaan sugeynaa dan marka waxaan sugeynay in uu noo install gareeyo this VM tool-ka markaan sugeynay VM tool install ayaa leedahay tan installation ayaa noo bilaabaya marka installation-ka haga noo yimaado oo ku dhufanaysaa run setup baa leedahay shaqada inoo qabanayso baasha hadda aan sameynayno micnihii waxa laga faa'iidayaa waxay tahay in screen-ka oo dhan dhalada oo dhan noo qabsato intaas kale ayaan ka helana faa'iidadan ka helano iyo mouse-keena inuu si fiican noogu shaqeeyo everything-kana si fiican noogu shaqeeyaan ay compatible la yeeshaan VMware-ka next complete next install baa leenahay install-ku noo dhameeyay dhalada ayuu soo qabsaday sidaa arkaysaan hadeer everything way noo hagaagsan tahay waxa weeye waan dhamaystirnay
maasha allah restart ayaan u direynaa marka restart ayaan leenahay dib ayuu soo daarayaa saasaana fiican inaad restart oo dilidan oo markuu soo kacayan uu lasoo qabsado wax walba uu soo degsaday VMware toolka iyo Windows inay compatible wada yeeshaan inay isla shaqeeyaan inay labadoodu inay macnihii associations la sameyn karaan soo kacay marka waxaanu ku galaynaa administrative C123 attached dollar enter ayaa leenahay marka ugu horeysa waxaanu sameynaynaa in aynu magaca ka bedelno iyo inuuna IP inaan kasoo bedelno computerka iyo Windows serverka marka server managerka ayaa noo soo kacaya Windowska caadiga ah wuu ka duwan yahay Windows server manager Windows server waxa weeye waa brand name ee siisay Microsoft waxayna bilowday Windows serverka Microsoft 2003 wuxuu naga caawinayaa in aan ku sameyno wax loo yaqaan Active Directory domain services Active Directory wuxuu yahay everything DHCP waxay tahay DNS wuxuu yahay insha Allah waan ka hadli doonaa lecture soo socda lecture ayaan ku tagi doonaa marka hadda localka ayaa noo soo kacay local serverka ayaa noo soo kacay marka server managerka markuu saa kugu soo kaco ee halkaas ay ku taagan tahay shaqadu waxaan u baahanahay inaynu fiirino check kareyno local server name-ka marka everything waa kaas magaca computerka oo magaca noocaas waana ka bedeli doonaa workgroupka insha Allah markaan domain sameyna ayaa halkan workgroupka domainka isku bedeli doontaa Windows firewallka waa iska xireynaa uma aynu baahnin sababta waxyaabo badan ayuu caqabado badan ayuu naga hor istaagayaa marka inaad kulligood iska xigtid ayaa ku fiican refresh off marka remote desktop waa enable inaad tirahdid sida remote desktopka loogu soo galana waa in tusi doonaa refresh IPv4 ethernetka ayaa ku dhufanaysaa property ayaa leedahay internet protocol version 4 ayaa ku dhufanaysaa property ayaa leedahay marka hore waxaad fiirinaysaa cmd ib config ayaa leedahay 13144 okay isla asaga ayaan qaadanaynaa 13144 okay isla asaga use baleedahay 192.168 13144 192.168 13.2 ayaa leedahay default gateway marka DNS ka waxaan leenahay 192.168 13.144 ayaa ka dhigaysaa DNS ka then okay ayaa leedahay close statuska markaad fiirisid 144 ka weeye you see everything waxa weeye waa sameynay static waa inuu noqdaa Windows serverka local serverkeena inuu static noo noqdaa weeye waxaanu doonaa insha Allah inaad ku soo xirno ku join karayaan computer badan inay ku soo join karayaan ay ku soo biiraan marka waa iska xiraysaa halkan ayaa refresh leedahay okay wakaas marka everything markay saas ku yihiin enhance security ka tagaysaa waa iska xiraysaa waxay tan in dhibaysaa marka internetka booqanaysid ama page galaysid
explorerka internet explorerka markaad gelaysid ayuu micnihii maanta dhan ayuu annoying kugu noqonayaa marka iska xiraysaa isagana marka waxaad tegaysaa nameka tegaysaa computer name change waad tegaysaa halkan ayaa computerka waxaa leedahay Windows Server 80 waa leedahay Active Directory okay waa leedahay then okay close restart now wuu soo daaraya computerka wuu soo kacaya then configurationka ku sameynaya ayaa ku set up gareysmaya ayaa set ku noqonaya everything is ready bay noqonayaan waxaan u baahan doonaa marka inaan roles and pages-kooda aan u baahnayn aan kusoo degsano that's it marka everything hadeer waxa way noo shaqeynayaan insha allah marka waxaa leedahay abc 123 attached to that waanu galaynaa waxaanu fiirinaynaa server managerka aan ku sameynay configurationka bal in ay isbedel dhacay ayaanu fiiri doonaa sidaas ayaana configurationka loogu sameeyaa waana easy insha allah koorsatan iyadoo full ah ayaan duubaynaa soona geli doonaa insha allah iyadoo free ah si ay dadka uga faa'iidaan wax badanna uga qaataan dadka marka kan ayaan iska xirayaa everything hadir waa diyaar marka local server waa tagayaa local server marka everything waa diyaar Windows serverka namekiisa ayaa igu yaal xogaa refreshka marka uu kasoo baxo IP addresski waa kan everything enable remote desktopka Windows server Active Directory ayaa ID-ga usoo kaabsaday that's it everything waxa way ready insha allah casharka ku xiga ayaa waxaan sameyn doonaa inaynu Active Directory inaan soo dejino anagoo roles and pages isticmaali doono tukaas wasalaamu calaykum warahmatullaahi